videogan maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo soo celsho ama sida aad u soo cesho lahayd account forex oo kaa lumay account forex ah oo yacni passwordkii aa hilmaamtay ama usernamekii sida loo soo celiyo ayaa muuqaalkan idin tusi doonaa insha allahu tacaala. Marka haddaan ugu cusub tahay fadlan waxaan kaa codsanaynaa subscribe saartid oo 10,000 ama 10k aan gaarsiisid wax yaraan oo dhiman fahantin. Marka maaragtay ila shaqeey waa idinla shaqeynaya fahantin. Marka waxba maaragtay war intu daalo muuqaalka ayaa wargelinaa. Haddaad rabtid inaad soo ceshitid account forex oo yacni passwordkiisa ama aa hilmaamtay ama usernamekiisa aa hilmaamtay siiba akoonka macnaha akoonada waxaa waa laba waa midna waa brokerka midna waa MT4 waa midna applicationka lagu talagalay midna waa meesha akoonka aad ka maamulinaysa qaanada lacagta ugu jirto waa brokerkii kan brokerka marka muhiim ah kan oo yacni MT4 kada passwordkiisa aa hilmaamtay insha allah asna video kale kusoo sameyn doonaa insha allahu tacaala. Laakiin videogan si kooban ku saabsan yahay qaabka loo soo ceshto account forex siiba akoonka oo brokerka aa ku leedahay haddaa hilmaamtid login detailska ama wax lagu galaayo usernamekii passwordkii. Marka waxaa maaragta kasoo qaad hadda akoonkan waxaa hilmaamay passwordkiisa laakiin usernamekiisa waa haystaa waa aqaanaa. Marka waxaan sameyn doonaa horta usernameka halkaan gashanayaa marka halkaan gashan doonaa insha allahu tacaala. Marka halkaan usernameka aa gashto wax kale ma sameynaysid password halkaan ma gelinaysid sababtoo dee password ma taqaano soo maaha. Marka adoo is dhibin waxaad taabanaysaa forget your password ayaa hore ka taabanaysaa. Forget your password markaad gelisid waxaa ku leerta password geli marka password qaldan aa gelinaysaa kadib waxaan leedahay kadib waxaad dhahaysaa forget your password ayaad dooranaysaa. Marka wuxuu ku weydiinaa emailka oo maaragtay oo kugu samaysan yahay usernamekan geli si passwordka u soo ceshatid. Emailka ayaa geli doonaa insha allah isku soo noqonaynaa. Markaas waxaa leedahay retrieve password ayaa dhahaysaa wuu wareegsanayaa. Marka wuxuu ku leeyahay linki waxaa kugu dirnay gmailka hadda aad gelisay si aad password ku soo ceshatid. Marka gmailka ayaa tegaysaa marka saa ujeedid email ayaa noola soo diray emailkaasaa kalik siinaysaa kadib waxaa leedahay set new password cusub sameyso. Marka password cusub ayaa sameysanaysaa passwordka halkaan aad gelinaysaa passwordka cusub aad rabtid inaad samaystid. Passwordka hadda gashtay password cusub aad gashtay dabcan mar kale ku celinaysaa hubinaysaa kadib confirm ayaa dhahaysaa. Your password has been updated marka passwordka waa bedelatay hadda raa marka akoonka inaan galo halkaan waxaa gashanaya usernameka horaa u aqaan halkaan gelinaya. Halkaana waxaa gelinaya passwordka cusub hadda bedelay ayaa halkaan gelinaya. Login ayaa dhahaysaa marka usernamekii iyo passwordka cusub hadda bedelaya halkaan gelinaya kadibna login ayaad taaban doontaa. Sidaas fudud ayaa akoonka ku soo ceshi kartaa. Waa qaab fudud aad ku soo ceshi kartaa akoonka forex oo kaa lumay ama ka soo qaad akoonkan muddo kugu dambeyso waxaa hilmaamtay passwordkiisa iyo usernamekiisa. Qaabkan waa qaabka saxda ah u soo ceshi karto oo kaa lumay akoon aad ku leedahay broker. Insha allahu tacaala waa mahadsantihiin muuqaalkan like share comment ka baqiilina insha allah.